أيها الإخوة إن عفيف للنقضة مركا إن لا دور سنادا سيبا نكا دالين يردي إنو دور سنادا ووحيابا وقوة وين الدين تينو كنا واقس إن لا دور سنادانا وحقفك كو كالمية جرا وشريعة إنا فرطي وحاوحا كمدا الحياة حشودك رقو إنو حشوده هبلوهنا حشودان waxaa ka mid ah inaan la isku dhex darin rag iyo dumarka ee laba mujtamac kala soocan intay noqon karaan ba inay noqdaan waxaa ka mid ah inaan sheekada labadin oo dhalinyaradu waa nuxnux badantay teleefoonadan iyo waxa laga hadlayo baabkan in la iska dhaafo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid ah haddiiba la isu baahdo la hadlo waxbaa la kala iibsanaya ama waxbaa la isweydiinaya إلى وحده فلا تخضعن بالقول هذا الك هادلنا لما أورن دمرو رجي دمر ما وضع هادل كرا لما أورن لكن وحلا يدي محي فلا تخضعن بال هذا الك هاي تشبيننا وتشبيسكو إنه قاسكو وحشة جينا أيا وحلا شيء يا كلهم جوري ولا لواي مساد بحاجة سينا يسهدينا تتراهدو يا داي تراو برال كان مثال سيا لبادبا waa laba eray oo isku intii laakiin sida loo yiri ayaa kala gadisan ilaahay wuxuu leeyahay fala takhda'na bil qawl hadalka ha jajabinina hoos wax hunguri ka keena ninka wax walo gabadha ka midiba sanqadheeda baynu nidhi ilaahay quraanka muxuu ku tilmaamayaa quraanku muxuu sheegay fi suurati an-nur wala yadribna بأرجلهن ليعلم ما عجها يدلك كتم من بالليل وعجتون كاسر رجو سوتشيديا برضو قرب تيدو رجو سوتشيديسا إلهي بقى حلي الدمر كويا عجها دلك كتمين إذا نحن لنا هديل الربع العفة هديل الربع دقن السلام وينو ماشي ماذا والدك وحلينا هاي أنت إنه هبلها دوار مرين لهين حشمد يا دقن كإسلام كو بريان برا أو إنه ينمد يهبلك على الصعنة أو إنه حجابته أستر كذا قادته أو عقيدة يا الدين يا آخرة يا واحد دوري كرا قف كانوا حجين كرا وحزام إنه برا وقف كانوا النار كفكرة يا جنة يا شرفتي دي سيا مجلس وكفكرة كرا هدي أخلاق أي قاب كاودس أنت بلشة أخلاق ده الله دسه ولا كتشوفي تي في يدي يقولون كي الراديو يدي وحن لقى واضح ناقها نسلو ليا هو يو نسلو ليا كتير ما هاي نير يعني رقمكم مركو حماضه حماها مركز دم وناق نقضه ما كهاد لا يقف كونه قبي تريا أما هستريا ما عين كان وأدب واللغة ولا ترينكرا لكن tan la wade muusiga loo tumay horta hidiya dhaqanka kuma jirto hidiya dhaqan Soomaaliyeed muusiga ma jiro hadii lagu yiraahdo hidiya dhaqan baa la nooleeyahay hidiya dhaqan gaaleed weeyaan muusigu Soomaali gaalkii Ingiriisiga intii la socota bigil iyo waxa la tumaba ugu horeysay sacabkeeda ay tumi jirtay cagahay dhulku garaaci jirtay ma jirin wax la tumaa idan dhaqanna uma aha waa dhaqan gaaleed hidana uma aha waa hidda cid kale leedahay hidda muslim maaha waxa habboon in bulshada muslimka ah maamulka iyo dawladda waayeelka iyo dadka mas'uulka ah macallimiinta iyo dadka iskuulada jooga in xishmada iyo xayaaga dib loo nooleeyo haddii la rabo inay dumarkuna cafiifaat noqdaan ragguna uu cafiif noqdo abba waliba uu jecel yahay inantiisu inay dhowrsanaato abba waliba inankiisu inuu dhowrsanaado inantiisu uu jecel yahay laakiin haddana wadadii lama hayo wada kale inuu ku raadacaynayna ma aha in gaala inta inoo timaado maalin walba khitaan fircawni baa wax xumeeya iyo ceebtu waxay gaadhay culimadeena loogu yeedho inay ka hadlaan un dumarka hoostooda iyo halkaas iyo hay-adii wado $10 lagu bixiyo ma aha waxaan leenahay gaalow iska ta khitaanka fircooniga adigu ka yimi isagaa xisaamkan iyo waxaan wata iyo fircoon iyo waxaan oo dhan islaamkeena haddaynu u noqonnaa waxaan oo dhammi baabaaya xishmadii iyo dhaqankii iyo xayaagii iyo dadnimadii inuu soo noqdo islaamnimadeenna inaynu dib ugu noqonno dhallinyaro idinkuna saa u dhowrsanaataan kow musiiraadka ka baxa musiiraadku waa laba musiiraad khaarijiya waxa qofka kiciya
qofka bini aadamka ahi meel hadduu gaadhaa jirta ay khatarta inuu soo noqdaa waa meelaha nebi yuusuf iyo maxaa la yidhahdaa ninkaa godku uu ku dumay iyo jurayj iyo nimankaan iyagu meesha khatarta intay gaadheen bay haddana dhowrsanaadeen si laynoogu tilmaamo aakhire inaan daliil helaynin laakiin innaga sharcigu wuxuu ina faray meesha inaynan gaadhin marka hore meel ka horraysa ku joogsanno oo ah ishaada laabo waxba haweenka ha sii eegeegi oo ah inan tahay xishood oo ah inan kow xishood oo ah isku dhex darsamina waxaan oo dhammi waxay xizaam u yihiin waxay teed u yihiin in wixii ugu dambeeyo zine uu dhaco waa cifatu lisaan iyo samci iyo basar ilaahay qur-aanku ina faraya inaynu isheenna dhowro si aynu cafiifnimada u gaadhno idan musiiraadka khaarijiga ah oo xawaasteenna shanta ah inaynu ilaalino waa kow dharka iyo maryahaynu xidhanayno inaynu ilaalino ragguna maryo gaaleedkan tirada badan leh in la iska daayo maryo gaaleedku xad baynu gaadhsiisannahay inaad aragto qof salaad tukanayo dabadu qaawantay masaajidda bal idinku gala safka kaa horreeya inanka ku tukanayo dabadiisa kuu muuqanaysa waa ceeb salaadina asixi mayso laakiin gaal baa inoo soo tolayoo maalinba mooduu tolaa mid dabada laga xidho mid candhada hoosteeda laga xidho mid bawdyaha laga xidho waa dhar gaal waxay ahayd ama inaynu dhar muslim soo tolno ama dawarwalaheenna aynu u tagno inuu dhar ka tula jirno tolanno libaaska habluu qaadanayaan iyo ka inamadu qaadanayaan labaduba dhar muslim inuu noqdo dhar cawrada astura aan ku dhejisnayn oo fool xumayn waxaynu u baahanay marka waxaasi waa musiiraadkii khaarijiga ahaa musiiraadka nafsigaana inaad iska dayso oo ah dhallinyarada waxay u baahan tahay dad camaliyiin oo mashquula inay noqdaan haddaad enerjigaaga isticmaasho dumarka iyo waxba waad ilaabaysa haddiise enerjigu intuu kugu kaydsamo maantao dhan aad maqaaxi fadhido sheekaynayso aanad waxba qabanin cunnana aad dibirtay fiidka markaad tagto guriga sawirraa indhahaaga hor yaacyaacya aan jirin riyadaa kugu badan laakiin waxaasoo dhanba waxay ka yimaadeen camalla'ida qofkan sida neefka xoolaa waxna cunaya beerkana u jiibsanaya waxaad u baahan tahay kow inaad shaqo samaysato wax akhriso wax taalaco wax baro xoogso wax qabo xataa cayaar tag inanka galabta kubadda soo cayaaree dee isna aan salaadu ka tegin caawa meel la qaban maayo iska seexanaya u daallan yihi socanka maaha inanka basketball soo tuurtuuray caawa isna meel la qaban maayo enerjigaagii baad wax kale ku isticmaashay ninka intuu meel fadhiistay 3 saacadood buug akhrinayay waa daallan yahay uu seexanaya haddaad si enerjigaaga isticmaali weydo uu kugu kaydsamo fiidkaad sheeka bilaabiyo heblaaya la hadal iyo xaggan ka boodiyo meeshan ka bood idan kow dhallinyaro haddaad rabtaan firaaqa ka baxa firaaqu waa dadku dilaa qof cimrigiisii wuxuu ku qabtay garan waaye waa ceeb cimrigu waa nicma alla ku siiyey haddaad nicmada garanba weydo waxaad ku samayso aad tiraa maxaynu ku dilaa wakhtiga waa ceeb firaaqaasi waa musiiraadka daakhiligaa buu ka mid yihi firaaqu markuu kugu tiro bato cunnadu kugu tiro badato hadday dee cunnadu kugu tiro badatona iyada iska yaree baa lagu yidhi xataa yo maxay samee soom baa lagu yidhi nin gaajoonaya dumarka ma fekero marka la dhergo ayaa dumarka laga fekeraa idan haddaad soontana waxaan waad ilaabaysaa nebigu wuxuu uhi war dhallinyaroy guursada haddaad taa awoodi weydaan dariiqa kale idin furane waa maxay buu nebigu leeyahay dee waa sooma dhallinyaro soomkiinu hadduu noqdo bil ka bil ramadaanta unbaad sugtaan soo maaha inta alla waafajiya ee ragga ay waa inta ramadaanta soontaa laakiin waxaa laynoo baneeyey inaynu khamiis soonno oo isniin soonno oo ayaamulbiidka soonno oo maalmo tiro badan oo sunana oo soo arooray soonno waxaasoo dhammi waxa weeyaan litarbiyati alanfus in laynagu rabeeyo ugu dambayn hadday dhallinyaradu dhowrsanaato waxay noqonaysaa bulsho qurux badan baa dhalanaysa oo rag iyo dumarba dhowrsoon oo zine iyo xanuunada faafiya qurunkoo dhammi ka baxay oo cibaado iyo wax soo saar iyo mashquul wax kale ku ah waxaan ku soo koobayaa markaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ducooyinkiisii waxaa ka mid ahaa allahuma innii as'aluka waxaa uu nebigu ku ducaysanayay allahuma innii as'aluka alhuda waltuqa والعفاف والغنى dhowrsooni buu ilaahay weydiisanayay badiya inaa ilaahay subxaana wa tacaala dhowrsooni weydiisataan
nebigii alla dhowray ayaa haddana ilaahay dhowrsooni weydiisanaya. idan dhowrsoonidu waa mujaahada baynu leenahay, waa wax dadaal u baahan oo baryo aad ku kabto, ilaahay baryadiisa iyo cibaadadiisa aad ku kabto buu u baahan yahay. bulshadii dhowrsoonidu ku badataana khayrkaa ku bata. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu annaganana dhowro, idinkana uu idin dhowro, dadka muslimiinta oo dhanna diintooda uu dib ugu celiyay si ay u dhowrsamaan. sala allahuma calaa nabiyi muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin.